muuqaalka waxaynu ku qaadan doonaa designo aan hore ugu baahnay YouTube-keena iyo Facebook-ga oo u baahday in la yara sharaxo. Waxaan doonayaa inaan yara sharaxan yar. Marka waxa weeyaan muuqaalkeena maanta ku horumari design-kaaga 60 talaabo ee soo socda. Alashaan 60 talaabo waxay ka kabayaan inaad design qurux badan samayso. Haddii design hore kaaga qaldamayna waad ku noqon kartaa 60 qodob baad ku eegi kartaa. Kii markaa ka maqan ayaad ku dabaqaysaa. kadib waxay ka caawinayaan inaad design qurux badan soo saarto. Marka hadaba waxa lagu yiraahdaa haddii aad rabto inaad horumariso hal design oo ka xumaaday iyo haddii aad rabto inaad horumariso xirfadaada graphic design ahaaneedba way ka caawin doonaan qodobadani xirfadaada inaad horumarisan way ka caawin doonaan oo sababtoo ah iminka markaad barato hadhow waxaad samaynaysaa wixii dambeed qabanaysa inaad ku dabaqdo. haddii aad hal design aad doonayso inaad hagaajisana halkii design laftiisa ayaad ku dabaqi kartaa oo halkii design ayaad iminka ku heli kartaa. magacaygu waa Cabdifataax Maxamuud, channelka daawanayso Sulub Graphics. fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe noo saar, like nagu dhiirigeli, wixii faaleed qabtana commentiga hoose noogu reeb, videogana la wadaaga asxaabtaada oo share dheh insha Allah. marka qodobkeena u horeeya waxa weeyaan markasta dib u eeg xogtii lagu siiyay. iminka marka aad qof client ah wax u sameynayso wuxuu ku siinayaa xog ay ku siinaya wuxuu ka odhanaya imka loogan doonaya waa business iyo e-commerce weeyaan oo kale ku odhanaya kalarada noocan doonaya marka qofka warbixin ka qaad kalarada nooca jecesha in lagaaga dhigo muxuu ahaa loogada noocyaad hore u aragtay oo aad jeclaan lahayd in loogadaadu sidaas oo kale ay yara noqoto ma jirtaa xog qofka dhameystiran inaad ka qaadato. hadhow marka design-kii sameeynaysan inaad xogtii ku base gareysa design-kii oo aad xogtii ku noqoto kolba waxa la doonayay la sameeyo loogaduna simple ahaato. ay simple baan ka dhigay wuxuu doonayay kalarada noocan kalaradii inaad ka dhigto. waxa la doonayay in laga dhigo horizontal baa laga doonayay mise inay isdul taala la doonayay. marka mar walba ku noqon qofkii aad loogada u sameynaysay si aad xog dhameystiran ugu hesho design-kaaga inaad u saxdo. laakiin haddii aad isku daydo xog la'aan inaad wax samayso adigana fikrad keenka ayaa kugu adkaan dooro inaad fikradii keenta ayaa kugu adkaan doonta qofkiina design qurux badan u sameyn maysid qaabka weyn insha Allah. qodobkeena labaad waxa weeyaan markaa wax badan ama wax baadhis samee. iminka markuu qofku ku yiraahdo waxaan doonayaa looga business ah oo e-commerce ah waxa la doonayaa inaad gasho internetka oo aad e-commerce looga design baadho oo loogooyinka e-commerce ka baadho way inspiration ayaad ka helaysaa iyo inaad design qurux badan samayso iyo waxyaabaha hore loo sameeyay inaadan ku dagmin oo aad waxyaabaha hore loo sameeyay eegto kadib aad design qurux badan adiguna samayso ayuu ka caawinayaa. haddii aadan wax baadhis samayna waxa tahay sidaan halkan ku qornay qof jiheeye loo dhiibay waan garanay laakiin qaabka uu isticmaalo haddii imka jiheeye lagu dhiibo oo compass lagu yiraahdo compass-kan laakiin aadan garanay qaabka aad u isticmaal lahayd waxa kugu adkaanaysa jihadii aad doonaysay inaad hesho. laakiin haddii imka qofku xog siiyo haddii aadan waxba baadhin waxa kugu adkaanaysa wixii inaad adigu maskaxdaada ka wada keento ayaa kugu adkaanaysa oo qodobkeedana labaadkaasina. qodobkeena saddexaad wuxuu noqonayaa sketch samee. sketchku waxa weeyaan sawir gacmeed inaad samayso sida inooga muuqata tusaalahan sawirka ah inoo galib yaala qodob walba waxa weeyaan sketch inaad samayso oo aad wixii gacanta ku sawirto intaad buug iyo qalin soo qaadato inaad maskaxda brainstorm inaad samayso buuggaad soo qaadataa tiraahdo waxa la doonayaa loogaduna noqoto waxa weeyaan waa education oo kale ka soo qaad buug iyo qalin iyo inaad iconadii aad maskaxda ku qabsato kadib aad samayso isku darto erayadii la doonayay in laga sameeyo loogada iyo iconadii inaad adigu gacanta marka hore isaga sawirato. laakiin haddii aad si toos ah markaaba computerkaaga u tagto oo aad istiraado design-kii bilow waxa ku adkaanaysa halkii laga bilaabi lahaa inaad hesho. sketch-ka markaad samayso waxaad helaysaa halkii aad wax ka bilaabi lahayd iyo qaabkii aad u bilaabi lahayd ayaad helaysaa insha Allah. qodobkeena afraad waxa weeyaan qurux kaliya maaha. waxa weeyaan macnaheedu design-ka marka qofku design ii sameeyo ku yiraahdo design-ka inaad qurxiso oo kaliya maaha ama aad quruxdiisu ku dadaasho. waayo design-ka waxa loo sameeyay waxa weeyaan inuu message gudbiyo ama fariin inuu dadka gaarsiiyo ayaa la doonayaa. marka fariintii inuu dadka gaarsiiyo marka la doonayo haddii aad wixii qurxiso oo aad xaqii fariinta imka kale faraha waxa jira qaab loo isticmaalo waxa jira sawirada qaar message-ka marka imka kale haddaan ku yiraahdo school baan doonayaa inaan u sameeyo poster oo soo xaysiinay registration oo aad posterkii markaan ii sameeyo ku yiraahdo aad sawir baadhi isticmaasho ama xaflad dad taas aad isticmaasho message-kii ma gudbinayo sawirkani aad isticmaashay laakiin design-ka adigu qurux baad isleedahay. marka qurux ma aha kaliya ee waxa la doonayaa the right tools inaad isticmaasho ama waxyaabaha saxda ah ee design-kaaga saxda ku ah inaad isticmaasho sida sawirada saxda ah qoraalka saxda ah iyo midabada oo aad kala doorato qaabka weeyaan qodobkeena afraad.
qodobkeena shabaad waxa weeyaan typography ama farta aad isticmaalayso faraha design kala duwan ayaa loo isticmaalaa far walibana design gaar ah ay ku qurux badan tahay oo aad u isticmaali kartaa iminka sida ka muuqata hadii aad arkayso tusaaleynan waxa ku qoran waxa weeyaan I wanna be waiting for you waan ku sugi doonaa labada farood ee la isticmaalay hadii aad arkayso isku mid ma mid waxa ka muuqata dhiig ayaa ka muuqda ama far aan ku qurux badnayn waxyaabahaas kale in lagu qoro farta kalena hadii aad arkayso si qurux badan baa loo qoray marka fartu waxa la doonayaa inay ku habboon tahay design-ka aad u isticmaalayso inay ku habboon tahay ayaa laga doonayaa typography-gana qodobkeena lixaad waxa weeyaan midabadu qaab bay isku qaataan psychology-na way leeyihiin color psychology waxa la yiraahdo hadii aad iminka arkayso tusaaleynan colorka blue hadii aad arkayso depth stability trust confidence iyo calm ayuu ka turjumayaa isku kalsoonaan aaminaad iyo xasilooni ayuu ka turjumayaa hadii aad arkayso casaanku wuxuu ka turjumayaa awood iyo wuxuu ka turjumayaa energy hadii aad arkayso akhtarku wuxuu ka turjumayaa garow ama koriin wuxuu ka turjumayaa nature ama waxyaabii dabiiciga ah balance-kii uu ka turjumayaa safety-gii uu ka turjumayaa hadii aad arkayso qaybtan cadaanka xagga hoose hadii aad arkayso wuxuu ka turjumayaa security-ga iyo peaceful-ki nabadii iyo xasiloonida marka color walba waxa loo baahan yahay psychology ahaan in wixii aad u fiiriso oo aad fahansan tahay oo kalaradii qaabkii ay isku qaadanayeen aad fahansan tahay color matching marka waxa la doonayaa colorkii marka isticmaasho in wixii markuu qofkii user-ka arka ama qofkii loo bandhigayay in wixii emotional effect oo yeesho oo qofkii uu soo jiidan karo qofkii soo marka xogtii kale uu akhriyo lixda qodob hadii aad ku dabaqday design-kaaga waxaan rajaynayaa insha Allah taala in waxyaabo aad u fara badan ay ka caawin doonaan waxa marka inoogu dambeysay waxa weeyaan fadlan muuqaalkan la wadaaga asxaabtaada hadii aad jeceshahay inaad hesho xogo kuwan la mid ah iyo aqoon kale oo aad korarsataba fadlan follow na soo dheh ama subscribe noo saar YouTube-ka hadii aad naga daawanayso hadii aad Facebook-ka naga daawanaysana follow na soo dheh insha Allah aad iyo aad waa mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.